كما بحدينو افتل ما إلينو اسمو ما هيامي يحيق تشوقو إذا هاد مفولي إذكوت كالولاتو أول مجاري عرفت كل برص دولة سومر عن هالكن واحد ردي دولة عرفت كحنا النسي حرمت أقومه marka waxay ku yimaadaan saddex qaybood ay ku soo galaan halkan qaybta hore waa qaybta aan cidi maaragtay carruurta la tuuro ka waxay soo maraan marka hore qof baa helade sida ay anaga warka nagu yimaado qof baa la kulma marka meel la dhigo qofkaas wuxuu gudbiyaa saldhig booliis halka ugu dhow saldhiga booliisku marka ay qabtaan maxkamadda ilmaha aroortaaba la geeyaa qofka haya inta uu sii haya dhowr labada cisho maxkamaddu dhamaanayso maxkamaddu marka way soo sharciyeysaa waxay u soo gudbisaa xarunta agoomaha magaciisa isagoo wata ay noo yimaadeen qolkan waa room 1 waxaanu keenaa kuwa ugu yar yar waxay ku jiraan ilaa 6 bilood ilmihi khaliya noo yimid laakiin kulli waxaan u maleynaa inay yihiin habla yar yar oo dhibaato ku dhacday oo mashaakil ku dhacay oo wax daryeelana waayay laakiin ma garan karno waalidkii maadaama aan anagu ilmihii mooyo waalid ba arkin kan waa qolka labaad ama room 2 marka ay soo dhaafaan 3 bilood ee xanaanada gaarka ah hooyada siinaysa ayaa halkan la keenaa kii ugu dambeeyay waxaan haynaa muddo ugu yaraan 2 week iyo badh ayuu nala joogaa waxa laga saldhiga koodbuur baana noo soo gudbiyay marka waxaana loo sheegay in gabadhi heshay isagoo meel banaana la dhigay kan waa room 3 marka 6 bilood iyo wixii ka sareeya ayaa lagu hayaa أنا تحمرتي أنا تكسيتي وردد شخصيتي أطلع حسابي ولا بوهليني أنت واحد سمين سعانه وقت عانها قاعد لو سميني مركادني نهيلو لقبها شيتيو على الشعبة ويا الوحسوسة ilmihii oo yar oo dhashay marka dibad la dhigo waad garan kartaa dhibaatada la soo kulmaysa caafimaad ahaan marka tan ugu hawl badan ee had iyo jeer anaga culays ku naga saarnay daweynteed waqti nagu qaadataa waa dhibaatada kala kulanta ilmaha dibadda iyo xamaha iyo banaanka la dhigay daweyntiisa marka xaaladda ugu xun ee soo marta ilmaha waa marka uu cidlada yaalo marka qaar kood baa ay cunaysaa marka qaar kood baa ilmuhu ku dhimanaya halkaas isagoo meeyda la helaya marna kii nasiib la isagoo marka la dhigay hadii la helo كل ضيعة وقبضن هالكاس وكيمة دعرته حنونة وقبضن هالكاس كتاب. وردد شخصيتي أطلبا حسابيو يلقوا هليني. والله شيء قارب بدن الله عني مكان كم بدع عصا وكل عيش دويته إن يرى الله دقة أي بعمتي وحلا الشيء إن لفيه دي يرى مدحية وحلا هلاي. مركادني نيلو لا يبغى شيء فيو عند الشعبة ويلقوا حسوسة. كلنا صنعت مع الدواء حوالي دتك حنوصنا أي حاجة دبركا كواسو كل ولا يغن والد كودا ما توران دتك دبركا كحنوصنا يا دمر كاسي وحكا سوق هذا بليس مركا بليس مركا أي كسوق قادان دوانا لو كنا ولا حنانية والد كيسنا ولا يغانا لكن المها بنان لدي والد كيس لما يغانا كل بانات هيسيو وبيكو السبينو هوشا دوايا أنا فاطماي ويتصادى دكتي لغاني لايو كل سلك بالغ سو غدبيا لكن waxa ban isleeyahay gobolada oo dhan bay ka yimaadaan caruurtani way hablo markay dhibaatadaas ku dhacdo waxaan warka ku helaa had iyo jeer marka la daba galo hablaha noocaas oo kala
inay gobolada kaleba ka yimaadaan oo inanta matalan gobolka u sheeyay ilaa gobolka u sheeya dabatana inanti markay ilmihii meelaha iska dhigto oo gobolkii iskaga noqonayso ويدشيادا نبات لغو هلايو وحلقوها المالا ويابا بنتادي هاي لغو باداراي وقل لغو مغوبا sidii ugu wanaagsan baan u daryeelaa waxba lagama hado budgetka dawladda iyo wixii kale loo helo carruurta sidii hooyo oo kala loo hayaa gurigan oo kale 6 hooyo ka shaqeeya marka gabadh walba ilmaheedii oo kale ay loo dhaqantay gabadhiga dhiiro kuban la muudo kasiyo qaado quruxdana ka mudano qofin laga aroosta hooyo inta waxay sameeyeen caanihii waqtigii caanaha gaadhay loo sameeyay markaad ninhiilo laga boqo hashiisiyo adigana shaaba way lagu xasuustaa waxay ilmihii oo yar oo dhashay marka dibad la dhigo oo garan kartaa dhibaatada la soo kulmaysa caafimaad ahaan marka tan ugu hawl badan ee had iyo jeer anaga culays naga saarna ee daweynteed waqti nagu qaadataa waa dhibaatada kala kulanta ilmaha dibadda iyo xamaha iyo banaanka la dhigay daweyntiisa marka xaaladda ugu xun ee soo marta ilmaha waa marka uu cidlada yaalo marka qaarkood baa ay cunaysaa marka qaarkood baa ilmuhu ku dhimanaya halkaas isagoo meeyda la helaya marna kii nasiib la isagoo marka la dhigay hadii la helo kulli dayaca ugu badan halkaas ka yimaada carruurta xanuunada ugu badan halkaas ka qaada وردد شخصيتي أصيبان حسابيو يلقو هليني والله شيء ويلا أنت أسيره باشي كما بحدينو iftilma eleeno dadkuma hayaame ixiga joogo sida had mafuule xilgowdka luulato awalguma gaadhi carruurta kule process dawladda soo maraan halkan waa xiradii dawladda carruurta ku xanaanaysay xarunta agoomo marka waxay ku yimaadaan 3 qaybood ay ku soo galaan halkan qaybta hore waa qaybta aan cidi maaragtay carruurta la tuuro ka waxay soo maraan marka hore qof baa helan alkimanta joogaan adiga warseedii kan waa qolka labaad ama room 2 marka ay soo dhaafaan 3 bilood ee xanaanada gaarka ah hooyada siinaysa ayaa halkan la keenaa kii ugu dambeeyay marka waxaan haynaa muddo ugu yaraan 2 week iyo badh ayuu nala joogaa waxa laga saldhiga koodbuur baana noo soo gudbiyay marka waxaana loo sheegay in gabadhi heshay isagoo meel banaana la dhigay أنا حمارتي عانيت كسيسي kan waa room 3 marka 6 bilood iyo wixii ka sareeya ayaa lagu hayaa أنا حمارتي عانيت كسيسي وردد شخصيتي أصيبان حسابيو sida ay anaga warka nagu yimaado qof baa la kulma marka meel la dhigo qofkaas wuxuu gudbiyaa saldhig booliis halka ugu dhow saldhiga booliisku marka ay qabtaan maxkamadda ilmaha aroortaaba la geeyaa qofka haya inta uu sii haya dhowr labada cisho maxkamaddu dhamaanayso maxkamaddu marka way soo sharciyeysaa waxay u soo gudbisaa xarunta agoomaha magaciisa isagoo wata ay noo yimaado qolkan waa room 1 waxaanu keenaa kuwa ugu yar yar waxay ku jiraan ilaa 6 bilood iftilma eleeno dadkuma hayaame ixiga joogo ilmihi khaliya noo yimi
لكن كل waxaan u maleynaa inay yihiin habla yar yar oo dhibaato ku dhacday oo mashaakil ku dhacay oo wax daryeelana waayay laakiin ma garan karno waalidkii maadaama aan anagu ilmihii mooyo waalid ba arkin badan oo la cunay marka halkan badda cas oo kale cisho dhaweyto inaan yar oo la dhigay ay ba cuntay waxa la sheegay in la faheediyay yar madaxiyo wax la helay markaad ninhiilo lagu baqashiisiyo aysan dhashaba oo lagu xasuusta kaleena soo timaada waxa weeye dadka xanuunsanaya xagga dhibirka kuwaas oo kale waa la yaqaan waalidkooda ma tuuraan dadka dhibirka ka xanuunsanaya dumarkaasi waxa ka soo qaada biliiska marka biliisku marka ay ka soo qaadaan deewana loo keenaa waa la xanaaniyaa waalidkiisina waa la yaqaanaa ka laakiin ilmaha banaan la dhigay waalidkiisa lama yaqaan ruuxaanad habiino kulbaanad heesiyo ogay ku sabiino hawshaada waaya anaba imaaye wiitasada dugsi laga